magacayga ku bilaabo waxa la dhahaa Miro Coday anaan inta dhaafinaynin maxay tahay horta raggu way iska rabash badan yihiin haddaan xagga ay sir jikare kullu dhalinyaraan oo siyaabo badan waa soo joogay qisadii ugu la yaabka badnayd baa waxay ahayd nin hanka ka noqday raqiis oo maadaama uu ninka ragga uu hanka ka noqday raqiis aad iyo aad u liidataa ninka raggaana waxa lagu ogay moogtiin hankiisu sareeyo maalin maalmaha kamida waxa dhacday anigu iminka de kulli ba sida dhalinyaradu badan tahay Facebook xoog ma yara isticmaalo xagga WhatsApp kan ku badanahay maalin maalmaha kamida waxa soo codsaday inaan kadib adigu in badan ba furin dhisayn cusgiisa ma garanayo in badan adigu warqad uu soo dirdiray waan la hadli waayay uu soo dirdiray wuxuu guri walaal inaan qariiba baan hoo wax nimanaya burco waan jecelahay waxa tahay dhalinyarada reer burco waana jecelahay inaan burco imaado laakiin maxay joog waxaan ku arkiina reer burco tahay inaad soo dhaweyso ayaabaan doonayaan baan sa ku arko already inankii maxay toy waan la hadlay waxaan sidee maanta adigoo reer burcayaan la oran waa qariib ismacaaniso moogti ya qariib dooti wax noocaas inankii markaan la hadlay waan soo dhaweeyay wala WhatsApp kaaga shig buur waan u sheegay inankii markaan WhatsApp ka wada hadlay bariyo maalin buu soo garaacay wuxuu guri walaalo maxay tahay Miray bari baan u soo baxayaa burco xagu jooga markaa isagu booram uu ka yiminayay markaa Hargeysa nimanay markaa daan waasaan mooday moogti burcaan u soo baxayaa barito wareer baan ku walaaleed maadaama gobolka igu timi aad soo dhaweynimo waad leedahay maadaama tahay qariib anigu dhulka qariibka markaan tago si fiican baa leey soo dhaweeyay asxaabtuna maalinba waa noocde markaas inankii adigu wuxuu soo garaacay ilaa adigu baaro 7 meelaha waan soo baxay 10kii wadana la soo hadlay waan soo galay marka taleefaliga u dhaxeeya burco Hargeysa waad iska garanaysaa 8 inta la soo baxo 10 lama iman karo anigu halkii ka shakisan ayaaba waxa dhacday maqribkii la soo hadlay wala soo galay magaaladan waxaan kaga soo degay xaafadda Lado Balaasa ma jeclaanayeen ma jeceshay inaan caaw saragno maslaxa habeennimadii ha dabadna waxa walaalo maadaama tahay qariib dawad yarada lanta ma iskeeranaysid ma ibu guri walaale inay saragnaan doonay waa okay baan ku dhawaano sarkaynaaye soo diyaar garow markaas qudadaydu hawlo shaqo waxbaan ku yiri jiray moogtahay waa caadi baan ku marka shaqada ka soo baxo uu inanka u yimaado meeshaan soo fadhiisiyay maxay tahay meel aan adoo ku yara balanay soo fadhiisiyay marka waska qaabasada waa soo dhaweyn moogto waa inankii imanay marka asxaabada man ku wada joognay meesha asxaabtii waxa dhacday inankii ma markuu soo galay koofiyad weyn baa la iska sitaa baalka baayo dig hada reer boore baalka baayo dig moogda waa la iska leeyahay walaal ha walaal halka maaragtay aqaayada walaal ma taqaanaa television tawdow walaal ma garanayo walaal bacha soo dhigarayay ay ka keenaysay marka daacad baan ku dhigayaa waa caadi walaale waan imanaya bal iska dhaayar waa la yimaado iyadoo meeshii la iska tagay la iska qaabaysan yahay walaal ayaa ku shishay walaal inaan bayso sheego bajaajku halka marka inanka uu noqdo waxaad ka shaqeysay soo magaalada kala garanaya markii hore la ila soo hadlay maxaan soo raacay ahayd say baashu fashilmayso dabadna inankii dhamaayo meeshii taagan markan inta wax ku walaal wad wanaagsan tabeedo qariibada magaalada kala garanaysa aayarina mari inankii markaa soo fadhiisiyay ayaa waxa dhacday بعدين هذا عبار بس يرسلنا ولا المجال كسودو مجال هو قبل كاجي أولف تم سومالي لا نودنا قبل كستوى قبل كاجي من دام إن هذا الصومالية قبائل مشرو كسودو يصير إنا كعبار مركب هذا فردينا إنا صاحبنا عبار قبتين لود عيني أيام ما لقينا أنت كذاك علي أيام الكل بو فور صداو أورا نارينا كوي رح شانه إيه ركيرم ولا هذا هبلا يسكتر بيك كده تورانو هبلا دري ماي مركب هبلي ويسكرتين abli buu garanayaa show orada anigu abla dirmay ablu saaxiibada meesha noo joogeen waxba inaga dhaxeeyay inaga ma dhaxeeyaan dad walaalaha ku soo dhaweynay deeyaga qudadoodan ku barayaaba marka ayagii waa masif soo galay inuu qororo kale inaga qariibka farto balmaadaman bari magaalada ka sii baxadiisi yaraaysan waxa dhacday inankii kolba mobilku marka mobilkana huuna laga doonaya mobilku la yara galaa hala huuna xagad yara joogta orada wallahi waska reer galbeedina ku maxaa ka yarasiya marka waa yara shakisana already waxbaad liyan kugu daalinayna inankii markii aan hawsh yara wadnaan arkay inuu wax ka yarisiinay dhas moral yahay aan ku walaal wada daalintahay orado wala iska hordad kadad marsuugu 2 week meelaasan joogay amba week waxa aan ku weekaasan sarkayna wax weyn ma waxa dhacday inankii intaan weekiiba ka soo wareeyay ayaaba inantan saaxiibka ina yara barakaysnay ayaa kolba soo gashaa kolba way baxdaa kolba soo markii dambe nobel iska soo fadhiiso markii iska soo fadhiisatay ayaaba inankii waa hal dileelay anna waan iska mashquulsan qofkan silent ah in aad ciidaha jigaas ku keentay waa maxay halka inantan aad ka didsan yahay inantan buu ka didsan yahay afar xabo boora markii la tagayeen fisiga adigu yidii xaaja la tagay moogta oo seera lagu soo yara gaas sawirana meelaan baa soo yara dhigdhigto boora dabadeedna inankii inantii igu tirinaya
walaal inanka si baan u yara garanayaa amiiray bal qof tugaaga wax ka soo iibinaysa iska yara dhigo in yar oo shan mar sii yara dah dabeedna waayo waan ku dhaqa maga soo yara noqonayaaye in yar sii suga inantii inanka bas waraysto walaal inanta waxaan isugu sheegay in reer Boorama baa la iska leeyahay in reer Boorama walaal isugu sheegay inantu ay garan mayso walaal hay ceebaynin hay ka shifin marka waxa ka waa reer Burco noqdo waa reer Burco halkan buu galaaba marka waxay ka dhigan tahay inuu maartay qulubtu uu ka yahay junuusada maartay la socoto inuu qofku deehankiisu yara sareeyo ayaaba qurux badan marka hanka ka noqon cayd baan leeyahay kii gobolka u dhashay ka dhasho nin raga baatay adeer meesha ku dhigto baasha la soco inanka maxaad ugu jawaabtay marka inanka waxaan ugu jawaabay hankaad ka raqiis ahayde أنا أضمن أصلا صاحبي ده قلت يدو قران بويت. raqiis ahaydun baan leeyahay dun carbeedo aad iyo aad baad adiguna ma hadsantay kulli waad ku mahadsantahay sida wanaagsan dhalinyarada qosooyinka xaad uga qurabi ku ag taagnay iyada magaceeda iyada sheekayr bay saayo qosol badan oo mala la dhoo Faysal dasoma bal aan ku soo dhaweeyay magaceeda iyo qisada inoo haysa xasan horta aad iyo aad baan ku salaamay barnaamijkaagana soo dhaweynaya waxa la qisay keentay sabaaxi magaadhisiisoo bergoy looranti horta qisooyinku iska badan in marka tay qisooyin fara badan baa ku soo maray noloshuna iska way badan tahay aniga waxay soo martay qiso aad u xanuun badan qisadaas oo halka ay tiri maxay ahaydeen أميري قصدي فردوس قصدي سهي ساي أرتو مقعي أنكو بلاي مقعي وين رديق سعيد بردها مقعي وين رديق سعيد قصدي أنك هاللي أنا حكم انتهاي قصة شعيلة إنا بانس شعلين إنا كأديات بانس شعلين أنا ونوا شعلين سووا شعلا واحد علينا إن بلا بس يسوق جرنا سكول كان دينا شري سكول كون دمي سكول دمي محي هذا aduu si shakadii ahayd baan isku yaradhacnay khilaaf baan soo dhaxgalay aduu khilaafaadka weyn xalinay haddana waan isku dhacnay weyn xalinay jacaylkuna iska waayay badan soo moog marka maxay heeday aduu markii dambe in badan baan kala baahnay habeenada kamid ah rabadaanta in badan kala maqnayn ayaa aniga inaan saaxiibnayo ila fadhida baan sidii maxay heeday garaacinanka waan garaacay iska waran Faysal baan ku oray yaa un biigurin shog uu guursadeen ka nabaan ogeyn wuxuu ugu maxay heeday yaa un biigurin waxaan ku ka waran maxay xaaladda ka waran maxay heeday in daqiiqayana dadka huwa fiicana isoo islaantiisa ag fadhido waar saata wareey ka soo garaacin bay tasho speaker ka u daaran ka islaantiisa isaga la fadhiyo nabaan ogeyn dilo wadada waxaan ku oray afradii cunay waar xabiib iska waran baan ku dawaa islaantii berigii waa way shiraadatayba waaryaha maanad waxay igu leeyahay waruna maanad maxay heedeen ninkayga soo garaacay Samson kuna adeera had ka shagan soo ramadan wali anaga iska wadwada jirnay kowde marka inuu barbaru ku noolaa heedeen burcam joog jiran reer burcam wahay aduu shakada saad baadu waa isku dhacnay ninka dana gabadhii way soo garaacday ninkayga maxaa laga siiyay isaga wasaqnaa maana ku jeclaa uu adigu ku dafray marka war maana ugu leedahay maana beriga dawi jeclaayo taana waan jeclaa horday soo nagi isbedelkana ma ogid adigu isbedelkana ma ogid ilaa wanana jeclaay rawadan tun bay xasuustay qisooyinku marba xoog soo xasuus rawadaanadu daxoog xasuustay hay waxyaabo badan baa xasuustay isaan ku guuri maxay yahay tagawadi tinaaninkayga amaaseen kulnaan sagina uu ku dafirsan yahay sagina uu dafirsan naaninkayga amaaseen ninkaan ku amaasay Soomaha akay way isagii gudib hees baan u qaaday marka hees waad u qaaday markii inankii ku dafiray way maxay oranaysaa heestu waxay haduu qofka ku jeclaado intuu dhaxan ku fadhiisto bartaa wadnaha ku seexsho xiisuu dhamacdu ku daray dhibtuu baday caashaqaagu barwaaqaadoo dhex jiifa way dhagaha ka furaysa maaha barwaaqadii isagoo jiifay dafiray marka labadoodu ku maqlayaan maxay ku jawaabeen iyagu deemayaan si dhawaabaan qiiroodo bas ka dhigay marka ragga waxaan oran lahaa dawladda saa u galay marka guursada runta u sheegay yaa runta sheegay naada waa guursay laakiin hadda inantii ku leeyahay hatta ilaa ma jecelahay waan ku aad u mahadsan